duleedka magaalada Gumburaha ayaa waxa laga helay qof meeyda oo muddo lagu qiyaasi karo 1 bilyan saa'id u yaalay goobtaasi lamana garan karo sababta ka dambeysay dhimashadiisa hayeeshee waxa la filayaa in abaaraha ka dhacay geeyiga sababeen dhimashadaasi hooyga ninkaasi laga helay ayaa dadka deganaa muddo lagu qiyaasi karo 4 bilood iyo saa'id ay ka maqnaayeen kama dambeystii waxa ninkaasi meydkiisa la wareegay hay'adaha ku shaqada leh Soomaaliland maayirka degmada Gumburaha Cabdi Bashaar Ubaale ayaa si kooban uga warbixiyay xaaladda ninkaas iyo halka uu haatan ku dambeeyay xaaladiisu maanta min subaxdii ayaa meel u jirta degmada Gumburaha oo dhinaca waqooyi ka soo xigta oo xaggan Iranka ah 3 kiiloomitir degmada u jirta ayaa lagu soo arkay nin meyd ah oo xaafad laga guuray bool lixdii muddo ku noolaa ninka markii aan u tagnay boolkaas aan ugu tagnay waxa uu ahaa nin meyd ah oo wuxuu u ekaa muddo ilaa bil iyo bar ah inuu halkaa ku jiray sababaha waxa weeyaan dadkii halkaa deganaa waad ogtihiin oo dadkii deegaanka Gumburaha deganaa way hayaameen oo galbeed bay u hameeyeen cilada darteed muddo bil iyo bar waxay sabatay in ninka boolka dhexdiisa meedka ku ahaa aan cidna ogaan markii aan ogaanay ee aan dul tagnay waxaan ku wareejinay arintaas cidii haydihii shaqada ku lahaa ayaan ku wareejinay oo la wareegay arintiina iyaga baaritaan ku maqan sidoo kale maayirka degmada Gumburaha ayaa waxa uu ka hadlay xanuunada uu sababi karo waqtiga xooluhu waxaanu fariin u diray wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee deegaanka ku nool badankoodu way soo noqdeen xoolahoogii wax baqtiyay oo bankii wadan ay noqdeen marka wasaaradda caafimaadka waxaan ugu baaqinaa inay si degdeg ah gurmad ula soo gaadho oo dadka xoolaha laga basriyo si ayna dadkiina inooga raacin dhanka kale maayirka degmada Gumburaha ayaa xubnihii hore gudida Gumburaha xilkii ka qaaday halka uu xubno kale oo gudiyana u magacaabay oo kala shaqayn doona xaaladda nabadgelyada ee degmada Gumburaha shaqayn doonta arrimaha nabadgelyada gudidaas baan magacaabay waan soo dhaweynayaa dadka deegaanka u dhashana waxa leeyahay gudida iyo annakaba na soo wada dhaweeya oo nala wada shaqeeya walaalaha yagii shaqada hore u hayn jirayna waxaanu leenahay welcome xilku walaal waa meerto Cabdiraxmaan Samariye TV-ga caalamiga Home Cable TV degmada Gumburaha ee gobolkaasi Hawd